في الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت تاريخ تهي بشي كوباد لبديدي لبدكن أفري لباتن وحان مرك الرئيسة هدنا قيا إلهي سبحانه وتعالى إن جارسيي إن قرن كين جمهورية الصومال لان كنا لونه نبض barwaaqo iyo isku tashi iyo inaynu maanta gaadhno in aynu ilaahay fadligii in jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsigu ugu horeeyay uu ka yimaado dawladda Ethiopia waa fadli eebba weeyi shalay oo ay bishu ahayd bishii koobaad 2024 waxay la mid ahayd maalintii aynu xaqiijinay qarannimadeena inaynu la soo noqono 1998 May magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco lagaga dhawaaqay madax banaanideeni aynu 1960 aynu luminay inaynu la soo noqonay waxay shalay la mid ahayd aftidii dastuurka kadib guulaha qarankani gaadhay shalay toole oo ahayd sanadkii cusbaana waxay nooga duwanaan doontaa sanado badan oo ina soo maray waana maalin taariikhda gashay waxana inoola mid noqon doontaa maalmo qarankan waxa weeyaan kaga tilmaaman taariikh gaar ah waxana runtii soo jeedinaya marka qaran ahaan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah state-ka qofkii ugu sareeyay inaynu maalinta u astayno maalin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tilmaaman maalmihiisa kale maadaama aynu gaadhnay wixii qaranka Soomaaliland uu muddada dheer sugayay maadaama aynu gaadhnay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland samirkii dheeraa uu soo maray mid kamid ah shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland wax badan bay ku soo sabreen waxay ku soo sabreen qarannimadoodii jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay lumiyeen waxay ku soo samareen qarannimadoodii jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay la soo noqdeen oo aanay ku imanin la soo noqodkaasina dhayal iyo marxab aanay ku imanine xinjire ay u daateen ummadi u dhimatay ummadi u agoomowday ummadi u naafo u noqotay ayaa qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland ku yimiday inta wixii ka dambeeyayna qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland shacbigu waxay ku soo sabrayeen inay xaqiijiyaan yawmun min al-ayyam inay gaadhaan yoolkooga ah iyaga oo kamida beesha caalamka calankan tawxiidka jamhuuriyadda Soomaaliland ku xardhan yahayna uu ka babanayo adduunyada waxa weeyaan indhaha ka laabatay qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland ee 32 jirsaday waase ilaahay mahadi hadii dawladda Ethiopia ay noqotay dawladdii ugu horeysay ee waxa weeyaan aynu la samaysano iskaashi dhaqaale inala yeelata inaguna taa badiilkeega ay noqoto waxa weeyaan dawladdii u horeysay ee i'tiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqda markii heshiiskaasi la saxeexo muxuu ku yimiday in maanta talaabadan aynu soo gaadhnaa maxay ku timiday iskama yimanin dadaal dheer bay ku timiday waxay ku timiday shacab isku kalsoon waxay ku timiday shacab doortay hogaamiye adag oo qarannimadan jamhuuriyadda Soomaaliland tadxiyo badan u soo sameeyay halgan u soo maray waxay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland u doorteen hogaamiye ka saari kara maraaxisha uu dalkani soo maray iyo waxa cadawgu u maleegayo oo ugu dambeysay xalay toole markii arintaasi shalay toole madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ay heshiiskaasi shalay toole is afgaradka hordhaca ay kala saxeexdeen in xalay toole jiif iyo joogba ay diiday dawladda taagta daran ee lagu ilaaliyo hoteelada magaalada Muqdisho ay soo saartay intaasoo statement oo kala duwan oo midba mid aanu la mid ahayn iyo intaasoo ogeysiis oo ay ugu yeeranayaan xildhibaanadooda lagu ilaaliyo hoteelada iyagoo waxay u kordhinayaan jirin hal maalin shacbigooga la gumaadayo ee cadowga gudahoogu laynayaan hal maalin iskuguma yeedhin golaha wasiirada iskuguma yeedhin oo kamay tashanin dadkoogan la dabar goynayo
waxaase mar kasta ay u shiraan qaranka jamhuuriyadda Somaliland maalinta wax u kordhaan taasina waxaanu leenahay wax nagu cusub ma aha waa wixii aad caadada u lahaydeen waa wixii aad ku waxa weeyaan ku foognaan jirteen qarankan jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ka qaaday waa awood iyo midnimo ta halka aanu maanta ku gaadhnayna waxa weeye in shacbiga jamhuuriyadda Somaliland midaysan yahay hoggaan adagna dalkani maanta leeyahay hoggaan adagna loo doortay waana waxyaalaadkii lagu doortay xisbiga kulmiye ee labada jeer dalkan taladiisa iskaga kala dambeeyay waxyaalaadkii lagu doortay waxa kamid ah kow difaaca iyo madax banaanida jamhuuriyadda Somaliland ilaalinteeda keenista iyo doonista iyo u dadaalista i'tiraafka jamhuuriyadda Somaliland waxa soo dhan waa waxa maanta hogaamiyahan dalkan maanta hogaaminaya ee waxa weeyaan qaranka jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha ka ah mudane Muuse Biixi Cabdi waa wixii shacbiga jamhuuriyadda Somaliland ay ku doorteen waana ilaahay mahadi jamhuuriyadda Somaliland ay ku doorteen waana ilaahay mahadi